أنا aad ugu faraxsanahay Soomaalida mugga weyn ee iskugu timid maanta kulankan ballaaran oo ah ka tashiga ama kulan weynaha ka tashiga iyo codbixinta dalada jaaliyadda Soomaaliyeed waana wax loo baahnaa Soomaalida inta ku sugan inta maanta inta la fakaro maskax la geliyo ka bacdi laga tashto dalad lagu wada mideysan yahay oo Soomaalida meesha joogtay ee kaga tashanayso aayaheeda عدي سو أبو شيء يعدي تابك لسه جهد يدلك لسه وقوع ماننا وحين مديه إلا لقرب استاجو لقونا دير الجليو سيدا ماشي لو حساني وحن إذا شيء أجنته يفورمال كإيقابك وحول عدونا دلالة جالية الصوماليات فورمال كوحجير دونا إلا سدح مجع نوقرن سدح داس مجع أو ورقدار لقيبي دونا أو لو عضي دونا saddexda magac marka mid idan fiican oo loo arki daro in loo qaada karo ayaa marka qof walba uu xusi doona uu tikare doona haduu Ilaahay yiraahdo xubnaha waxa jiri doona marka constitution ama shuruudo iyo waxyaabo loo sameeyay dalada jaaliyadda Soomaaliyeed ayadana qof walba waxa la sameeyo doona waa la daabici doona marka uu muhiimadda ugu weyn ee maanta marka kulanka wada tashiga qof walba aragtidiisa iyo dadkan baaxad weyn loo wada waxa la rabaa in marka aad maanta codkiina iyo aqligiina iyo aad ku garab istaagtaan dalada jaaliyadda Soomaaliyeed maanta waxa codeynayna magaca dalada oo aan ku kala duwanahay qof walba raay gaar u ka qabaa fikir gaar u ka qabaa marka waxaan go'aaminaynay midkee raacna saas darteed waxaan soo bandhignay Irish Somali Council iyo Irish Somali Council iyo Ireland Somali Council iyo Somali Council Ireland saa u maleynaa majority hadda waxa qaadanay Somali Council of Ireland exception markii laga reebana hal xabo ka duwan Somali Union of Ireland qofkaas initiative-kiisa iyo fikirkiisa oo ku qadarinayna anaga waxa uu talagalnaa maahan in saddexaas lagu koobnaado inuu qof ka duwanaan karo fikir ka duwan imaan karo taas waxa rabnaa waa maasantiin hadda codadka waxaa codeysay 45 qofood 37 waxay u codeeyeen codka magaca ugu dambeeyay oo ahaa Somali Council of Ireland 37 cod saddex cod oo qasaare macnaha saddex qof meel u codeeyay ma wajin saddex qofood saddex codod no problem afarna waxay u codeeyeen magaca ugu koreeyo oo ahaa Irish Somali Council hal qofna hal codna wuxuu noqday conceptiisa soo dhibtay oo wuxuu keenay union marka dhamaan markii la isku daro 37 plus 3 plus 4 plus 1 45 ay noqonaysaa 45 marka waxa si aqlabiyad leh codka u qaaday oo loogu codeeyay Somali Council of Ireland magacaygu waxa la lahaa Caadil Sheego odayaashan ayaga meesha igu cazumay maalmahan waxaan u ahaa mustashaar ama la taliya runtii waa dhalinyaro si fiican isku soo abaabushay barnaamij fiican noo soo diyaariyay oon isleeyahay wuxuu noqon doonaa mid dhaxalgal hadii Ilaahay insha Allah taala annagana waxaan sugeynaa oo fiirinaynaa talaabada kale oo xigto maanta ama caawo waxa si sharaf leh u codeyseen magaca xisbiga oo aan isleeyahay waa la isku raacay oo qaabka ugu fiican wixii laga tashaday ceeb ma lahan mar walba waana idinku amaanaya waxaan isleeyahay wax loo baahnaa waaye in intaasoo ummad meel joogto aan iska warqabin oo koodi xanuunsan aan laga warqabin oo ki yimaada aan la soo dhaweyn karin oo aan talooyin la siin karin waxaan noqonaynaa dad aan macno weyn aan sameyneynin adduunka maanta meesha ay Soomaali ka joogto waa ogtihiin waxa la qofka markuu wax sameeyo qof la caayinay hadda aragtid waa qof oo wax sameeyo waay qofka waxba sameeynin waxba lama dhihi karo caayina ma lahan amaanna ma lahan laakiin markastoo talaabo qaadid waxa suurtagal ah dad badan oo ka hor imaanaya inay jiraan kuwa badan oo ku taageeraya inay jiraan shardi ma dadka badankooda inay ku taageeraan qaar fikirkaaga diidan way jiri karaan laakiin waxaana la ka rabaa dadkeena reer Dublin joogo iyo inta naga soo horeysay inta imaan doontaba magacan maanta aan ku midoonay in aan ka run sheegno Ireland deganahay
aad baan u taageerayaa fikraddan iyo dadka soo abaabulay iyo dadka soo qaybgalaba intaa ka bacdi halka mid oo annaga naga maqan waxay tahay in dadku ay ayagu ay midnimo yeeshaan waxaana tafaraaruqiyey oo na kala diray waa midnimo la'aan inteena markaan midowno in kale nagu xiran marka nimanka dhalinyarada soo diyaariyay aad baan u ammaanayaa inkastoo weli ammaan aysan gaarin waxqabadkoodan kolley ku qiimeyn doonaa waxaan kula daarmayaa inay dadka soo dhaweystaan oo ay dadka wacyigeliyaan la kulmaan baahidooda ogaadaan waxa ay wadaan usoo bandhigaan saasaan marka hore kula talinayaa tala ahaan ka oday ahaan dadka deegaankana waxaan kula talinayaa soomaalida waxa meeshaan dhigana waxaa waaye oo dalkeen naga soo waday waa tafaraaruq in yaroo isku kalsoonaa ka fiican dadkan wadayaaca waxaa ku dadaashiin saad uga soo qayb gasheen inaad u taageertiin oo aysan noqon kulankan mid oo caawa inta la sheego lagu kala tago dhalinyarada juhdi aan gelino dadku waa wadadooda shaqeeya laakiin inta badan leesma arko ayaguna dadkaas soo dhaweystaano adunkuna kaalintiina ka qayb qaata maadaama aan dhismihii ku jirno aad u mahadsantihiin inaan casuunteen dadkan ka soo qayb galana dhammaantiin waa mahadsantihiin annaga waxaan nahay shacab isku xiran qoomiyad gooni aan nahay aan u baahan inaan maaragtay danaheena gaarka aan qabsano aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulanka quruxda badan ay joogaan hablaheena dhalinyaradeenna iyo raggeena guud ahaanba kaasoo looga arrimaysanayo ama looga tashanayo aayaha bulshadaani Soomaaliyeed ee halkan isugu timid waana wax lagu farxa runtiina la dhihi karo aan meel fiican ayaan joognaa wax ku qabsan karno haddii aan waxyar ku laabta khibradeyda ama waay aragnimadeyda qurba joog muddo badan ayaan joogay Yurub 12 sano ayaan ku noolaa wadanka Norway oo aan ka imid yacni bulshada Soomaalida waxyaalaha aan ka baranay waxaa ka mid ah markaan meel isugu imaano waxaan dad isjecel waxbaan wada qabsanaa waxbaan dooranaa laakiin inaan waxaasi dhaqan gelino ee aan hergelino inta badan way nagu adag tahay waxaa la yiraahdaa organizationada la dhiso labada sano ugu horeysa burburaan sababtana wax kale ma aha khibradeedna idin la wadaago waxa weeyaan aaskii iyo dhidibadii sida loo aasay ama loo sameeyay ayaa inta badan daciif ah hadday noqon lahayd yacni sharciyada loo sameeyay rules and regulations loo sameeyay hadday noqon lahayd markii ugu horeysay structure-ka organization-ka sida loo dhisay marka insha Allah maadaama dee aan way arag badan aan leenahay dadkan gaar ahaan ka yimid wadamada kale ee Yurubta waxaan rajaynayaa inaysan sidii noqonin oo cashar aan ka qaadano ee organization-ka uu noqdo mid cagihiisa ku istaago ujeedada loo sameeyay iyo bulshada loogu talagalina garab siiyo waxaan dhihi lahaa ninka Soomaaliga oo la doortay hadduu asina nasiibkiisa ay noqdo mid hirgalo oo Soomaalida wax u qabto oo cadaalad falo Ilaahay ka dhigo marka waa loo baahan yahay waana ku maasantihiin haddii aad arki jirteen wax la kala leeyahay waxaan filaa lama kala lahaa doono wax maanta aad dhisateen insha Allah taala taasa ku bishaaraysanaysiin waxaan waa wax Soomaali ay ku wada midaysan tahay oo Soomaalida qofkii maqana la gaarsiin doono intiina joogto ayaa kaga wakiila insha Allah taala maadaama aan dooranay magacii Somali Council of Ireland asku wada raacnay insha Allah taala waxa idin sugayaa gudoomiye iyo in la yiraahdo marka insha Allah taala si ku meel gaar ah oo temporary ah xubnaha guddi waxay isla garteen gudoomiye Yaasir Ahmed oo ku magac dheer Khadar insha Allah taala idinkana waxa idin ka codsanaynaa inaa cod gacantaag ah ugu codeysaan haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah intaas aan noo dhimay barnaamijkeena after that manala qaadateen manala xambaarteen manala qaadateen manala xambaarteen manala qaadateen manala xambaarteen Allahumma fashad waxa waa idinka idin soo bandhignay idinkana ay qaato marka insha Allah taala yarkii ugu dambeeyay hadalkii uu yiri waa 100% waa hadal qiimo badan oo fiican insha Allah Yaasirow su'aalaha inta badan adeeg kugu socod doonaan waxa laga rabaa dadka jooga iyo dadka maqan kulli inaad isku xirtid kii geed xun fadhi xataa inaad soo wadid waxaan
waxaa la raadinaya waa midnimada iyo isku xirka ummadda Soomaaliyeed duwan inay meeshaan iskugu yimaadaan ay ka qayb galaan madashan oo midnimada ku salaysan iyo kalsoonida runtii annaga waxaan u soo istaagnay wax kala ma ahayn waxaana dhibtay kala firaaq macnaha kala maqnaanshaha tirada badan ee bulshada iyo mar walba oo dhibaato gooniya dadka shakhsiyaadka Soomaaliyeed u taabanayso waxaan rajeynayaa inaan noqdo gudoomiye ku meel gaar ah muddo hal sano ah waxaan gaarsiin doonaa dalada jaaliyada Soomaaliyeed inaan gaarsiiyo muddadaas in la doorasho cod iyo qofkii markaas daneynayo oo Soomaali ah inuu ka soo qayb galo inayna noqonin mid koox ama group ama shakhsi meel ku xirto oo qof walba oo Soomaali u noqoto mid tiir ah oo muhiimadan aan saaro dadka Soomaalida sida iskugu imaan lahaayeen waxaan rajeynayaa inta ka maqan iyo intaan gaari weyn kulligeen ma ahan inaan diidanahay laakiin inta aan gaarnay hadirtan raalli naga ahaadaan inta kalena insha Allah taala waxaan rajeynaynaa inaan ugu tagno meel walba ay joogaan aan la wadaagno qorshaheena iyo waxaan u mahadcelinayaa kulli guddigii ka soo qaban qaabay barnaamijkan uu weyn yahay Maxamed Nuur iyo wiilasha kale walaalaha ee markaas meesha nagala shaqeynaya barnaamijkan oo si tabarucaad ah khayriyan ugu shaqeynaya marka aadaan ugu mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaashan aadaan ugu mahadcelinayaa waana mahadsantihiin waana mataqaanaa wixii hadda ka dambeeyana insha Allah wiila yaraado iska warqaadayna howlka weyn inaan qabanaan rajeynayna bulshada weyn iskugu soo wacno kadibna aan kala warqaadano qof walbana taladiisa iyo mataqaanaa fikirkiisa wax walba waa qaadan doona insha Allah wiila yaraado taladiina mar walba ma ka maarano bini'aadan aan daciif aanahay wax aan qaban karna kaliya ma jirno adika laantii